kulanto wacan oo wanaagsan daawada ku soo dhawaada galka wararka. qodobada aad ku daawan doontaan maanta waxaa ka mid ah khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalay madaxweyne xaaf iyo madaxda ahlu sunna, ciidamada yuusuf dabageed oo la wareegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo xiisad saaka ka taagan magaaladaasi, ciidamo booliis oo isku dagaalay lacag baad oo laga qaada baabuurta iyo arday ku dhaawacantay dagaalkaasi, al-shabaab iyo ciidamada Jabuuti oo dagaal xooggan oo ku dhaxmaray degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib markii ciidamada Jabuuti weerar xooggan lagu soo qaaday. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka warar. fadlan haddii aad ku cusub tahay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqa iyo xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya. balse aan ku bilaabo maamulka Galmudug. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in khilaaf xooggan uu ka dhex qarxay madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlu sunna. xoggan goordhow ka helnay ayaa sheegaya in kulan u dhaxeeyay madaxweyne xaaf iyo xubnaha ahlu sunna ee ku biiray Galmudug oo isfaham waa ku soo dhamaaday iyadoo la isku qabtay doorashada Galmudug ee lagu kalsoon yahay, ayaa caasimada Oyland u sheegay in xubnaha ahlu sunna ee fadhigooda uu yahay Dhuusamareeb ay mabda ahaan aqbaleen in doorashada Galmudug ay dhacdo bisha soo socota, taasi oo xaaf si weyn ugu soo horjeestay. madaxweyne xaaf ayaa in muddo ah diidanaa doorashada Galmudug, wuxuuna marar badan ku adkaystay in muddo xileedkiisa uu kasoo bilaabanayo markii ay isku biireen Galmudug iyo ahlu sunna, taasi oo macnaheedu yahay inay u hartay 3 sano oo kale. ahlu sunna ayaa marar badan qabatay fikir kaas la mid ah, ha yeeshee lama yaqaan waxa isbedelay. hadda waxaa sidoo kale la ogeyn in dowladda federaalka Soomaaliya ay kaalin ku leedahay isbedelka ku yimid madaxda ahlu sunna. madaxweyne xaaf iyo madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa u dhaxeeya khilaaf xooggan iyadoo doorashada Galmudug la filayo in ay dhacdo bisha soo socota. ha yeeshee madaxda Galmudug ayaa waxay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Cadaadad iyo Dhuusamareeb. wararkan ka heleyna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo taabacsan yuusuf dabageed ay la wareegeen inta badan magaalada kadib markii uu diiday xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. ciidamada daacad u ah dabageed ayaa gacanta ku dhigay xarunta maaliyadda maamulka beledweyne iyo dhammaan kontarool laga galo magaalada oo hadda si buuxda ay u maamulaan. gudaha magaalada ayaa sidoo kale lasoo dhoobay ciidamo dheeraad oo daacad u ah yuusuf dabageed. dhanka kale gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa la sheegay in xabsi guri haatan loogu dhigay magaalada beledweyne. wararka qaar ayaa sheegaya in wax dhaqdhaqaaq uu sameyn karin gudoomiye Caraale oo xilkaasi u magacaabay madaxweynaha Hirshabelle. yuusuf dabageed ayaa sheegay in shacabka Hiiraan ay ka tashteen madaxweyne Waare isla markaana uusan aqbalsanayn xilka qaadista lagu sameeyay. arrintan ugu weyn ee dabageed iyo madaxweyne Waare ay isku qabteen ayaa ah maareynta dhaqaalaha badan ee ka soo xarada gobolka Hiiraan, waxaana madaxweynaha uu doonayaa in lacagta ka timaada beledweyne si toos ah loogu shubo bangiga maamulka Hirshabelle oo isaga uu maamulo. mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabelle oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiiro ayaa hadda wada dadaalo looga hortagayo khilaafka u dhaxeeya yuusuf dabageed iyo madaxweyne Waare inuu sii xoogaysto. wararka laga helaya isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in halkaasi ay isku rasaasayeen ciidamo ka wada tirsan booliiska Soomaaliya. iska horimaadkan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho oo ah bar kontarool oo ay joogaan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya. iska horimaadka ayaa yimaaday kadib markii ay ciidamada booliiska isku qabsadeen lacag baada oo laga qaado baabuurta dadweynaha oo halkaasi ka sameystay boosaajo laga raacay gaadiidka. sida wararka hordhaca ay sheegayaan waxaa halkaasi ku dhaawacmay 2 arday oo marayay isgoyska Tarabuunka. 2 arday ayaa midkood waxa uu ka dhaawacmay madaxa halka midka kalena uu dhaawac halis ka soo gaaray qeybaha dambe ee jirkiisa. 2 askari ee israsaaseeyay ayaa la soo sheegayaa in lagu xiray saldhigga booliiska ee degmada Hodar kadib markii daawad ay ka gudbiyeen gaadiidleyda. sidoo kale rasaasta ay isdhaafsanayeen ciidamada ayaa waxay dhibaato u geysatay gawaaridii halkaasi ku sugnaa oo ay ka qaateen muraayadaha kadib rasaas ku dhacday. gaadiidleyda tagay saldhigga degmada Hodan ayaa loo ballan qaaday in loo sameyn doono muraayadaha gawaarida oo rasaasta waxyeelo ka soo gaartay. ciidamo ka tirsan booliiska ayaa lacag ka qaada gawaarida ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho. saraakiisha ciidamada booliiska ayaa weli xal u helay in ay joojiyaan baadda ay ciidamada booliiska ku hayaan gawaarida isticmaasha
jidadka Muqdisho. Wararka laga helay gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ay ku dhaawacmeen kadib dagaal xooggan oo ku dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti degmada Jalalaqsi ee gobolkaasi. Wararka waxay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay shalay galab jidka ay u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada Jabuuti oo marayay agaarka buundada Jalalaqsi, halkaasina la sheegayo in dagaal xooggan uu ku dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti oo ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Dhinaca kale Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa iyo 13 askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib dagaal halkaasi ku dhaxmaray. Weli wax warar kama soo bixin taliska ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan oo ku aadan dagaalka dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti. Ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa mararka qaar weerar xoogan ku soo qaada dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo weeraradaasi ay iska caabiyaan. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.